aqoon-yahano iyo waxgarad iyagu ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa munaasabad lagu taageerayo dhisidda wadada Ceeri Gaabo oo u dhawaan madaxweynaha Somaliland Silaanyo uu ku qabtay oo dhagax dhigay waxay ku qabteen magaalada Hargeysa. Maxamed Faarax Comaade ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ujeedadeedu ahayd sidii taageero loogu muujin lahaa dhaqaalana loogu ururin lahaa wadada isku xiri doonta magaalooyinka Burco iyo Ceeri Gaabo oo u dhawaan dhagax dhigay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. waxaana munaasabadan ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano madax dhaqameed aqoon-yahan iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Sanaag. mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ku yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan oo runtii badan ku habeeyay ama ku taageeray inuu wadada Ceeri Gaabo dhiso. dalka waxa wadada laga sameeyo waa islaamid meel kasta laga sameeyo wixii wadada laga sameeyo waa sunnah. xukuumadda Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland waajib iyo xaq sunnah ayaa ka saaran dhammaan wadooyinka Somaliland wixii wax laga qaban karo in laga qabto. badan bayna gaarsiisay ballanqaado badan baa madaxweynayaal qaadeen wax badan baa la soo maray ilaahay wuxuu ku guuleeyay inuu dhagax dhigo madaxweynaha maanta jooga. waxaan leeyahay dadka reer Somaliland meel ay joogaanba waxaan ku baaqayaa in laga qayb galo oo aan waxba lagala harin. waxa aynu qaban doono waynu sheegnay dadku waxay yiraahdeen wax qabad baynu qabanaynaa waa inay dhawowdo haddayna reer Sanaag oo aynu ka dhabayno oo aynu dhaqaalaheena iyo dhiiggeena u hurro inay wadadaas dheer oo balceel aynu karanayno ay gaadho meesha aynu doonayno Ceeri Gaabo. dadka nagu mucaaraday anigu ma mucaaradin maqle waa dad telefoonay dadkaas telefoonay talaabada ka soo noqdeenoo walaalahay waxaan leenahay mucaaradna waa taraxmo. محمد فارح عماد، Somali Channel، Hargeysa.